madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay shir madaxeedka iskaashiga Afrika iyo Mareykanka ayaa waxa uu kulamo kala duwan la yeeshay madax kala duwan oo ka qayb galay madashan. madaxweynaha ayaa waxa uu la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken, xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Lloyd Austin, sidoo kale madax kala duwan ayuu madaxweynuhu la kulmay. madaxweynaha ayaa la wadaagay xogayaasha guulaha laga soo hoyay dagaalka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab, wuxuuna tilmaamay saameynta cunaqabataynta dhanka hubka ah ee saaran Soomaaliya, isagoo sheegay in si nafhurnimo leh ay ciidamada Soomaaliyeed ku xoreeyeen gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay doorka geesinimada leh iyo garab istaagga ciidamada qalabka sida ay u muujiyeen bulshada deegaanada la xoreeyay, ayaa dul istaagay xaaladda nololeed ee adag ee ka jirta degmooyinka iyo deegaanada laga saaray argagixisada khawaarijta ah, kuwaas oo burburiyay kaabayaasha nolosha iyo adeegyadii dadweynaha ee ka jiray deegaanadaas. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka rajeeyay diblomaasiyadda Mareykanka inay codkooda golaha ammaanka iyo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ay ku xoojiyaan qorshayaasha dib u dhiska ciidamada Soomaaliyeed, qaadista cunaqabataynta hubka, ka hortagga isbeddelka cimilada iyo dib u dhiska deegaanada laga xoreeyay khawaarijta Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa dooda Soomaaliya ku soo bandhigay kulan aragti wadaag ah oo nabadda, amniga iyo dawlad wanaagga looga hadlayay. doodaas madaxweynaha waxa uu ku soo bandhigay hadafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo aragtida madaxweynaha ee lagu ciribtirayo khawaarijta iyo argagixisada gobolka, guulaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka gaareen dagaalada dalka Soomaaliya ka socda ee looga soo horjeedo argagixisada caalamiga ah ee Al-Shabaab laguna ciribtirayo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxyaabaha kaleeto uu soo bandhigay ama aragtiyaha kaleeto ee madashaas uu ku soo gudbiyay ayaa waxa kamid ahaa dowladda federaalka Soomaaliya ujeedkeedu koobaad uu yahay ciribtirka khawaarijta, kadibna siyaasadda guud ee dowladda federaalka ee madaxweynuhu hogaamiyo ay tahay in la gaaro Soomaali heshiis ah oo isku filnaata.